hambali halkan wax dirana annaka isku duubaan oo ah tiim xoog bixinta wararka walaalkin kiisikay ama magaciisa saxda loo yaqaan Cumar Maxamuud Cumar Kirish iyo xaaskiisa cusub Manaal taasoo arooskooda ama meherkooda ka dhacay ariga Australia waxaan leenahay khayr qabay ku aroostay ku mehersada Allah nigan dhigo ilaahay isku keen barakeeyo dhamaantiin kala hela carruur iyo ubad khayr qaba oo anfaca diinta islaamka iyo ubadkoodii hooyo Soomaalidaba sidoo kale xaaskooda aabba iyo hooyo Allah idinka dhigo mid ilaahay isku keen nooriya aan kala dhamaan jacaylkii qacmaha isqabsada aan weligood hoosh is oran haddaba inkoo dhamaantiin isku duuban annakoo ah tiim xog bixinta wararka waxaan ilaahay subxaanahu wa ta'ala uga baryaynaa in xaaska ama reerka cusub maanta isku soo biiray ilaahay subxaanahu wa ta'ala isku qoray in ilaahay isku barakeeyo ay kala helaan carruur iyo ubad khayr qaba ilaahay isku kii barakeeyo aan leenahay annakoo ah tiim xog bixinta wararka ama dhammaan bulshooyinka Soomaaliyeed fadlan channelka subscribe saar like saar muuqaalkan sii gaadho dad badan oo ogeyn xaqiiqada dhabta bulanadu tagto daaqada ka baxday arooskiini waa dhow yahay xaflad meher baan ila qabtay bashbashe barwaaqa ku jooga abadkeen dunida intaan nooshin Siika iyo Manaal ilaa idinka dhigo reerkii dhismay dhaqma diinta islaamka iyo diinta dadka weynaha Soomaaliyeed iyo islaamka oo dhan ubad khayr qaba u dhalo anfaca kii dalkiisa hooyo dadkiisa anfaca Allah idinka dhigo ubad khayr qaba dhamaantiin anfacaynka iyo Siika iyo Manaal baa Allah idinka dhigo annakoo ah tiim xog bixinta wararka ee bulshooyinka Soomaaliyeed nagu xidhan waxaan ilaahay uga baryaynaa annakoo iska duuban in Siika iyo xaaskiisa cusub Manaal ay kala helaan carruur iyo ubad khayr qaba ducadan in badan waan ku soo celiyay laakiin muhiimadda meesha taalaayunba in la isku duceeyo reerkii dhisme ee dhaqmana la idinka dhigo waxaan soo gaarnay gabagabada iyo gunaanadkii barnaamijkeen fadlan muuqaalka sii share garee oo la wadaaga asxaabtiin si ugu soo duceeyeen reerka cusub ee hadda dhisme la garee muuqaalka sii gaadho dad badan channelka subscribe ka ilaawina